maamulka gobolka Hawd ayaa maanta soo afjaray dacwad muddo dheer soo jiitamaysay oo u dhaxaysay laba qoys oo kamid ah bulshada ku dhaqan gobolka Hawd. dacwadan oo ahayd dacwad dhul oo ay ku muransanaayeen laba qoys ayaa soo jiitamaysay in ka badan 20 sano, taasi oo marxalado kala duwan soo martay ka garnaqisteedu isla markaasina aan lagu guuleysan in xal midhadhala laga gaadho soo afjarida dacwadaasi. Barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigayare ayaa dhawaan gudiyo kala duwan u saaray xalinta soo afjarida iyo koodayeynta dacwadaasi muddada dheer soo jiitamaysay iyo sidii qaab maslaxada oo labada dhinacba ku wada qanacsan yihiin loogu soo dhamayn lahaa. Barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigayare oo ay weheliyaan gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo ee gobolka Hawd iyo gudida nabadgelyada heer gobol iyo labada dhinac ee dacwadan u dhaxaysay ayaa kulan ka qabsoomay hoolka shirarka xarunta gobolka Hawd. waxa ay si wada jir ugu dhawaaqeen in dacwadaasi la soo afjaray. ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo ee gobolka Hawd Sheekh Cabdulaahi Maxamuud Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay marxaladii kala duwan ee dacwadani soo martay iyo muddada ay soo jiitamaysay. waxa maanta ka dhacday halkan wax wanaagsan oo la isugu duceeyay halkan ka dhacay dhul la isku haystay oo aniga oo maxkamadda gobolka Hawd ay soo maray rafcaanka maray ilaa tasara gaaray gudidii hadii ma dhulka ee Beligubadle soo maray oo intaas oo dhan soo socday dhulkii inta leesdaba socday maanta naga soo afgo'ay waxaana guusha maanta hadii ma ku seexan oo qaatay barisaabkii gobolka ayaa Ilaahay mahadiha ka gaadhay ayaa maanta hadii ma soo afjaray si wayna ku qanceen qoladii sidaas arrinkii maanta ku soo dhamaaday mudane gudoomiye waxaan leenahay Allah ka ajirsiyo ayaan wanaagsan baynu joognaa arrinkaasi oo dadka walaalaha ahaa maanta gacanta is haystaan guushaasi alxamdulilaahi rabbil caalamiin Allah ka ajirsiyo idinkana waxaan idin leenahay bogni boocala suuqin mariyo kuwa jannadii firdawsa wada galana Allah idinka dhigo. mid kamid ah odayada labada dhinac ee u dhaxaysay dacwadani ayaa sheegay inay ku wada qanacsan yihiin xalka lagu soo afjaray dacwadaasi. maanta arrinka lagu soo gabagabeeyay kitaabka quraanka lagu soo gabagabeeyay waanu qaadanay wax ka weyn oo kitaab quraan oo la aaminana horta ma jiraan bini'aadamku qofkuna hadii uu aqli leeyahay kitaabka Ilaahay wixii uu ku qaatay waxba Ilaahay buu wixii ayuu aaminay. marka anagu hadii aanu nahay ilmo Yuusuf Jaamac waanu qaadanay kitaabka quraankaanu ku qaadanay muddadaana way soo socotay waana ku qanacnay sidaas anagu weyn aanu ku dhamayn. Barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigayare ayaa labada dhinac ee dacwadan u dhaxaysay uga mahadnaqay sida uu aqbaleen in dacwadaasi la soo afjaro. Ilaahay subhanahu wa ta'ala baan u mahadcelinay Ilaahay dabadiina labada garab ee ku qancay markii aan arrinkooda baadhnay inay kitaabka Alle iyo dhaar ku kala qaataan oo ku qancaan dunyada waa laga tagayay naga aqbalay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. dhulku waa mushkiladda ugu weyn ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland haysta amba magaalooyinka waaweyn haysta waxaan iyagana baaq u dirayaa dadka ay had iyo jeer dhulka isku haya inay marjac ka dhigtaan kitaabka Alle oo ay dhaar ku kala baxaan. dhaartu wax qof nool baa lagaga sabraa inay kitaabka marjaca u noqdaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wayna ugu naxariisanaya wayna ku barakeynayaa. arrinkana labadii daraf muddada dheer maxkamadaha iyo ishaynta isku jireena iyo ragii kale nagala howlgalay ee taliya baasha kamid ahaa iyo ragii kale baad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Ilaahayna subhanahu wa ta'ala maalmii khayrka qabay baa lagu jiray. Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu ajar iyo xasanaad inaga siiyo. aad iyo aad buu mahadsantiin. Maxamed Jiciir Axmed iyo Cabdinajiib Dayib Cismaan TV qaranka Soomaaliland magaalada Beligubadle.